الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعنا وناسنا وديال الدين فملك صانع دعوانا ساعن كل السوداء ده حبيت معنا قبصومية ورت التلفزيون قرنكا وإذا كان معنا سمجالات الموديشو حبيت معنا قبصومية وحين كويجي الناس بدلدا لنعيدا هرومركا ويكون لابسنا سمجالات الموديشو magaalada Muqdisho oo ah caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa haatan ku socota wadadii horumarka iyo soo celinta nidaamkii dawladnimo ee burburay muddadii 20 sano ka hor. Muqdisho ayaa laga dareemayaa isbeddello taabanaya dhinacyada ammaanka, ganacsiga iyo dib u dhis ballaaran oo lagu sameynayo wadooyinka magaalada iyadoo laamiyo casri ahna haatan la saaray wadooyin aad u fara badan oo ay ka mid tahay wadada weyn ee Makka al-Mukarrama oo ah wadada ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho iyo wadooyin kale oo uu ku socdo dhismooyin iyo ballaaran lagu sameynayo waxaana gacan ka geysanaya mashruucani dib u dhiska ah dawladda Turkiga iyo maamulka gobolka Banaadir oo iskaashanaya waxa sidoo kale wadooyinka laga hirgeliyay astaamihii lagu hagayay gaadiidka sida samaafarayaashii oo shaqaynaya waxaana dareemaysaa gaadiidka oo si aad ah ula qabsaday xilliyada uu xiran yahay samaafaraha una istaagaya iyagoo sugaya inta uu ka furmayo oo uu samaafaruhu soo saarayo calaamadda cagaaran ee gaadiidka u fasaxaysa inay dhaqaaqaan waxa sidoo kale daawadayaal wadooyinka iyo isgoysyada taagan taraafikada oo kala hagaysa gaadiidka iyo dadweynaha taas oo loo fasiran karo inuu soo laabanayo nidaamkii dawladnimo isla markaana ay dadku si tartiib ah ula qabsanayaan una fahmayaan hananka dawladnimada mid ka mid ah darawallada kaxaysa tagaasida magaalada Muqdisho ayaa iiga sheekeeyay sida uu ugu faraxsan yahay isbeddelka ka jira magaalada Muqdisho isagoo isbarbardhigaya xilliyadii ay burbursanaayeen wadooyinka iyo haatan oo dib u dhis casri ah lagu sameeyay wadooyinka dad waa arkaysaa si wanaagsan gaarida sida isku dhaafayaan haddana loodan bari waxa soo badanaa shirka baa soo badanayo laamigeena ma sha Allah Afrika waa iska bareejeenay alxamdulillah hadda waxa taagana farxad badan ayaa taaganahay waxa ku faraxna iyo waxaan ku faanay inta buwaayasana barkay hadda isma dheeno waa ni jabsantihiin wadankiina sidii hore ma ku soo noqonaa isma dheen laakiin ilaa hadda waxa aaminsanahay waqtigii hore oo dadka hore haysteen aan ilaa hadda aan qaahaysanay oo ku faraxsanahay ay markii hore ka waran xilliyada ay burbursaneed dhibaato badan ayaa jirtay ama kuma wareegi jirin inkastoo hadda taksiil aan aanay habeenkii ilaa 8 saac waa wareegnaa waa shaqeynaa shacabka ayaa u shaqeynaa 24 hours aa shaqeynaa markii hore bacdi maqrib waa lagu xisaabtami jiray aadaanka adooyeeno hore baa ka xaroo jirnay laamiyadana salbaas ma jirin hadda baabuurtu way salbaasayaan dhibaato badan hadda laakiin inkasta ay jirin waanu ku faraxsanahay sidaan oo kale ay leerarka aad ku shaqeeysaa habeenkii oo kale waa shaqeeyaan ka waran iyagu sidoo ma sha Allah leerarkan aad iyo aad ma sha Allah macaasama faraha iyo wadanka quruxdiisa markii aan dadkii maqan xataa waxay ku fikirayaan markii hadda caawa wadooyinka ay fiirsadaan ama mar walba haday fiirsadaan waxay ku fikirayaan inay wadanka u soo noqdaan jawiga bedelan iyo hawada macaan oo wadanka taalo markii sidoo hore wadanka jaanjin buu isku sameeyay waxyaalo badan laga bedelay hadda daa'imaadaan dadkii arkaan markii ku farxayaan markii magaalada meel bay ka shidneed haddana meesha ka shidneed meel kale ayaa soo shidneed sidoo kale dib u dhis aad u ballaaran ayaa ka socda caasimadda iyadoo indhahaagu ay soo jiidanayaan dhismooyinka aadka u qurxoon ee laga hirgeliyay caasimadda hoteelada iyo goobaha ganacsiga ayaa iyaguna sii kordhaya iyadoo dadkuna ay xilliyadii habeenkii dhex mushaaxayaan magaalada iyagoo aan dareemaynin wax baqdingelin ah waxaa sidoo kale jira oo ifinaya magaalada leerarka ku shaqeeya cadceedda oo wadooyin aad u fara badan oo magaalada tan ku yaala laga dhex taagay magaalada Muqdisho ayaa ka baxday jawigii colaadda iyo rafaadka iyadoo haatanna ay cagaha saartay wadadii horumarka oo ay dawladda Soomaaliyana ku dadaalayso in magaaladani iyo goobaha kale ee gobolada dalka ku soo laabtaan bilicdii ay caanka ku ahaayeen si ay u soo jiidato indhaha bulshada caalamka ee imaanaysa magaalada Muqdisho kuwaasoo haatan balla diyaara inay gacan ballaaran u fidiyaan bulshada Soomaaliyeed iyo dawladooda
gudahaan intaas ayaa ku soo afmeeraya xubintii maxaana qabsoomay warka telefishinka qaranka Soomaaliyeed inta xubintan waxay ka dib u kulmi doonaa sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.